بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة والأخوات، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. وأنا سنتين صعدكين إيو لقطة سوقادين وأتكون سنتين وحنا الله سبحانه وتعالى أكتسان كرجين أجري إيو وناق aad ka shaqaysateen inaad soo ajiibteen dacwadan in aan maanta muxaadarooyinkan iyo hawlahan wanaaga qayb aan ka noqono. mu'tamarkani waa mu'tamarkii 16aad ee Islamic Center of St. Clair uu qabtay. waxaan xasuustaa rag hadda dhalinyaro oo nimanka hadda maamulka ah hawsha wada bariga aan qabanaynay in ay 5 sano qaarkood jireen qaarkoodna ay ka yaraayeenba. marka waa alxamdulillaah ilaahay mahadi weeyaan inaan maanta aan soo gaadhnay inaan kii 16aad aan qabanno. waxa marti inoogu ah oo safar inoo soo galay sheekheena Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir oo huwa ghaniyun can tacriif oo aan u baahnayn in la sheego ama wax macnaha tacriif laga bixiyo. sheekh jazaahullah khayr hada intan dambe wuxuu la noqday Minnesota ayuu inala noqday. ma sha Allah umad badan way ka faa'iideysatay. sheekhu wuxuu bixiyaa training iyo macnaha hawlo ku saabsan waa ilmaha iyo sida loo korinayo iyo waalidka sida ula dhaqmayaan. ma sha Allah wax fara badan buu ka hadlaa sheekhu khayr Allah siiyo. maanta marka waxaan uga faa'iideysanaynaa maadaama waalidkii aan nahay inteennani oo dhalinyaradii uu inaga tagtay inteena waalidka sheekha waxaan ka rabnaa in aan dhageysano oo uu bal hawl ama hadal dhaxalgal oo ilmaheena iyo saan ula dhaqmi lahayn inoo tilmaamo. marka sheekha waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa ta'aala ajrigaaga ha ku siiyo. waan ogahay inaad xanuunsanaysid, Allah ku caafiyo safarkaad noo soo gashay. إن شاء الله وضع عافمادي دونا عدكنا وكوفي عنان دونا بإذن الله. مركا إن شاء الله شيخ أيام كسر وين يا فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta aad baa uraan noqonaysiin hargab iyo duri baa jira nibasad u yaqaano insha Allah, laakiin waa dadaali doonaa inkuna dhagta ku dadaal insha Allah. waxaan ka hadlaynaa hadduu ilaahay yiraahdo at-tarbiya, sida ubadka loo barbaariyo. marka waxaan uga hadlaynaa hab yar oo ku saabsan sida training oo kale amba tababar oo kale aan ka dhigaynaa. marka insha Allah taala 25 minute 30 minute haddii ugu badato baan ila hadli doonaa insha Allah. waxaan horta ku bilaabaynaa tarbiya. tarbiya maxay tahay? tarbiya waan maqalaa. tarbiya maxay tahay? laba waxaan sheegi doonaa tarbiyadu waxay leedahay arkaan 5 ah maxay yihiin. 3 waxaan sheegi doonaa sida dadka loo tarbiyadeeyo 4 nooca keeba fiican. 4 ugu dambeyn waxaan sheegi doonaa annagu haddaan nahay dad muslimiina oo Soomaali ah oo Mareykan jooga maxaana laga rabaa si aan ubadkeena u barbaarino. 4 arrimood baan ka hadli doonaa insha Allah taala. waxaan ku bilaabaynaa tarbiya maxay tahay. walaalayaal tarbiyadu waa 6 arrimood. si fiican isku dhageysano. tarbiyadu waa 6 arrimood. hal arrimood maaha, labana maaha, waa 6 arrimood. imisaan ka dabaqnaa 6 arrimood waa inaan isweydiino. kow maxaa ka ah tarbiyada? tarbiyada waxaa kow ka barbaarin tanshi'a. ilmo yar
oo cunuga gabadh iyo wiilbaba ah oo ilaahay kugu galladaystay oo aad ka soo qaaday meel hoose sidee baad u gaarsiin inuu mas'uul noqdo tanshi'a dhada waad barbaarinaysaa wuxuu marayaa sidaan sheegi doono ilaa 5 jaranjaro marayaa jaranjaro walba waxay u baahan tahay kobcin gaara marka maxaan dhahnay tanshi'a dhada التنشئة عربية هذا هذا الصوماليينو وبربارين وي هذا مقصد كلمة التربية وحي كدغنتahay بربارين bay كدغنتahay لمبر 2 تربيته waxa la yiraahdaa takwiinku waa maxay waa samaynaysaa qofka waa toosinaysaa ilaa uu samaysmo takwiin waa guri aad dhisaysid waa binaa waa dhisaysaa dhinac walba waad kaga imanaysaa ilmaha yar xagga caqliga xagga dareennada xagga jidhka halka ruuxda meelo badan baa kaga imanaysaa waxaa dhahdaa takwiin baa dhahdaa dadka tarbiyadda ka shaqeeya qaal waxay dhahdaan as-sinaaca sida warshadda loo samaynayaa waa laba wey 3 waxaa la dhahdaa tawjiih waa direction waa tawjiihinaysaa direction baa u samaynaysaa halkan mar halkan hamari halkan waa halis la taliyaad u noqonaysaa ilmaha yar waxaad uga digaysaa hogag badan oo sugaya oo ku soo maray amba dad qayrkiiya soo maray baad ka weecinaysaa waa hanuunin wey tarbiyaddu waa hanuunin waa tawjiih waa direction waxay gaaladu dhahaan 4 تعليم تربيته وتعليم ilmaha waxbaad baraysaa alif baad baraysaa faatixada baraysaa waxa xun baad u sheegaysaa waxa fiican baad u sheegaysaa waalidkaad baraysaa raximka iyo qaraabadaad baraysaa shuyuukhda iyo imaamyadaad baraysaa waxaad baraysaa cadowga iyo waxaan cadow ahayn tababar maaha iminka waa cilmi information baad siinaysaa waa tarbiya iyaduna 4 وحويان وتثقيف التثقيف وكالجر تربيته وكالجر كلمة أد مقشاني أفكا إنجليشكا كالجر أفكا فرنسيسكا كولتير هل كي كإيمتي وحي كإيمتي وبيرتا كلمات بيرتا مركا الله بيريو محي بيرتو باهنتهي بيلوغا محي باهنتهي إندولك لدياريو التربة عرضة إلا دياريو المناخ هوده إلا دياريو إن العرعليو إن لغا إلالي آفاتك يدباتوينك مركا وكالجر ثقافة ويان قرية دان بيكا سعوتا تربية دول ميلون كما سعوتا آبها هويدا ولالها قرابدا أصحابتا وحكستون كوها الله إنو وكالجر إلمها وادقيسانيا هدو سوعلي دونا مركا وحال الربا إن الله فهم تربيته إنه تاي وكالجر أريد أفراد أريد شنا تربيته ومحي والتنمية وكبعين عقلي تنمية ويا تنمية وديفلوبين إما هو ديفلوبينسا وكورينيسا معها وحويا تنمية العقل عقلي يسيبها كبعيا المها السؤال شيء وكويدينيا هويو هدوكو ده هو بدايزا أبا محي اسكتين لبدين وسؤال بكويدين المهير هذا كنت راجع وحاسكون هيدا ما حاسكون هيدا حبوا بجواب المهرة وإلا أوشكتي وحاسكتين هدوكو إلى هذا هويو على وش هذه قصة صارتي ها سيدي قصة صارتي سؤال عجيب صومها كمان جواب سيدي وحال هذا هي إلهي ما كاسو يرى صار بركة ورس مركا صورنا ها إلهي وبرصا مركا وتوجير قاعد وحكولي يسكول قال لوجو صور دقيقة وفهم يا سيد الله درشوا يقول له هوي سعيد رشي أعوذ لا قدري سكوا كان الله قصة شيء أضو أستاذ بحكر يسري والله شيء ماشي قصة بحير مرجع بحال الربع وحيجي يعني المها يقول يسوي يرو آدو يرو شنجرة هو يعلو شيء يقول قاضي سامي هو يقول نقطة هذا يقول هالكذا يقول قاضي سامي أبى يقول نقطة هذا هوش هذا أبى نروح تاي وعنقول أخو شقتها وأخو كوريا لعجان كوسيا
iskuulaan kugu daray qur-aanaan ku geeyey gaadhigaan kugu qaadaa waan ku soo hooyaa waxa ayaa kuu qabta aniga maaha miyaa ma qof kalaa qabta wuxuu maya dee waxaan rabaa hooyo calooshayga ka soo saartay adiguna hankay ka soo saartay waxaan ku dhabarkaygaan ka soo saaray dhabarkayga aniga dhabarkaan ka soo saaray wuxuu dhisay dhabarkay ka soo saartay dhabarkay u sidatay waan kay muddaan dhabarka ugu siiyey see uga soo baxay buuhi ilaahay baa kaa soo saaro calooshooda dig kugu siiyaa buuhi marka macnaha waxa weeye ilmahani su'aalu hayaa markuu 10 jir gaadho su'aalo kale isweydiinayaa marka uu gaadho caqligiisa kobcaya adigu waa inaad kobcisid maaha inaad suuqa lagu kobciyo gabadhii xaydkaa ka imanaya amba way isdiyaarinaysaa jirkayga isbedilaya waxay ku leedahay amba hooyo isma garanayo jirkaygii waxbaa ku soo biray waa inaad u sheegtid la saaxiibtid saa sheegi doona waa tarmiya lixta ugu dambaysa waa maxay tarbiyaddu waa tadriib waa tababar tarbiyaddu waa maxay waa tababar ilmaha waa tababaraysaa haddaad aabbo tahay haddaad hooyo tahay haddaad macallin tahay waa tababaraysaa marka maxaan dhahnay lixda arrimood baan dhahdaa tarbiya waa isla fahnaan ma leh taas waxaanu imanaynaa iminka su'aasha ah arkaanu tarbiya tarbiyaddu waxay leedahay 5 rukni islaamku waa 5 rukni soo maaha salaadu arkaan bay leedahay soonku arkaan buu leeyahay xajku arkaan haddii la waayo xajka ma saxsamayo tarbiyadduna 5 arrimood bay leedahay haddii la waayo tarbiya ma soconayso okay culimada qaar waxay gaarsiiyaan 6 bay gaarsiiyaan 6 bay dhahaan labada waan sheegaynaa insha Allah maxaa ugu horeeya tarbiyadda rukniga koowaad waa maxay tarbiyadda waa in la helo barbaariye waa inuu jiro qof barbaariye ah muxuu yahay barbaariyo waa aabbo waa hooyo waa macallin waa sheekh waa imaamka miskiidka waa suuqa waa warbaahinta waa internetka waxaasoo dhan waa maxay waa murabbi waa barbaariye lambar 1 laakiin waxa ugu muhiimsan waa aabbo iyo hooyo lafdhabar weeye tarbiyadda marka waa murabbi laba maxay waa murabba waa in la helo qof la barbaarinayana waa ilmihii yaraa waxaan helay barbaariye la barbaariye 3 ujeeddada barbaarinta hadafku muxuu yahay maxaan ilmaha u barbaarinayaa waa 3 weeye maxaan u barbaarinayaa ilmahayga waay maandhalo iska daayo may hadaf baa jira loo barbaarinayo hadafku muxuu yahay nabiga inoo sheegay quraanka inoo sheegay alayhi salatu wasalaam inaan qof wanaagsan ka dhigno marka waa inuu jiro ujeedo 4 maxaan ku barbaarinayaa ilmaha wasaa'ishu waa maxay maxaan isticmaalayaa ilmaha si aan u barbaariyo maxaan haystaa wasaa'ilu tarbiya dhada 5 waa in la helo bii'a tarbawiya meel ilmaha lagu barbaariyo oo wanaagsano oo maaragtay bii'a saalixa ah waa inay jirto hadduu ilmuhu waayo bii'a saalixa bii'a faasidu aadaya bii'ada waa in loo diyaariyo guriga hadduu ka soo baxo masaajiduu aadaya hadduu ka soo baxo iskuuluu aadaya hadduu ka soo baxo dugsi buu aadaya hadduu ka sii baxo meeluu kubadda ku ciyaaruu aadaya iyo meeluu maaragtay nolosha ku soo sameeyo intaa oo dhan waa bii'o la dhabo marka 5taasi waa maxay waa arkaanta tarbiyadda weeye mid 6aad baa jirta oo muhiima تلحاد وحوية وإن له هلو ومهم جدا علماء قارا ويني أرتبي آدو وينيان وإن له هلو حرير عافمات قبا أو كده حيا كلا بربارين أيوه يكوا حواريا علاقات حرير عافمات قبا حرير هو صدق نوع مد جرن أو حنوصل بجرا دجال جوكته عيل جوكته هنجبات جوكته دل جوكته maaragtay dirir joogta ah eris joogta ah amba ilmo yaroo hooyadii ka baxsada aabbii ka baxsada waa cilaaqadaasi way bugtaa cilaaqo labaad baa jirto bukin oo jiranayn laakiin waxa dhaa waa cilaaqa mutawattira waa maxay waa cilaaqa aan deganayn waa ta ka dhaxaysa ruushka iyo maraykanka oo kale waa cilaaqa saaxiibna lama aha cadowna lama aha waa cilaaqada ka dhaxaysa jiirka iyo bisada ma taqaanaan
haddaad aragtid jiirku bisada uu iska ilaaliyaa bisaduna way daba socotaa haddaad aragtid ina yaroo hooyadii iyo aabihii ka dhadhabaraya amba aabbaha iyo hooyadii oo markuu soo galo la warba halka naga durug waxba sheekaysanay haddaad aragtid caafimaad ma jiro cilaaqada koowaad way jiran tahay tan labaadna ma jirane laakiin way gariiraysaa way qarqaraysaa xiriirka saddexaad waa maxay uu caafimaad qaba xiriirka caafimaadka qaba waa xiriirka ilmuhu aabbaha iyo hooyada uu la saaxiib yahay kelmadda aad u xafida cunugu ilmaha gabadha iyo wiilkuba saaxiibka koowaad ay nolosha ka leeyihiin waa inay aabbihi hooyo noqdaan marxaladay dooni ha socdaan waa shantii marxaladood ay nii sheegay waa soo sheegi doonaaye marxaladda koowaad iyo tan labaad waa run ilmuhu waalidka kama fogaado laakiin markuu marxalad saddexaad galo uu fogaadaa marxaladda afraad waa fogaadaa sii fogaadaa marxaladda shanaadna gurigu ka baxaba intaasi marka uu maraya ilmuhu waa in la socdo maxaa keenaya marka waa in la saaxiibo weeyaan caafimaad qabku wuxuu ku jiraa hooyada iyo aabbuhu inay cunuga saaxiib la yihiin amba ilmaha okay halkaa waxaa kaga baxay axbaabi fillaah maxaa kaga baxay tii labaad oo ah arkaanu tarbiya arrinta saddexaad baan imanaya tarbiyadda marka aan isticmaalina asaaliib baa jira habab la raaco afar hab oo khatara jirta afar hab oo la raaco habka koowaad waxaa idhahdaa annaku waata aan u badan nahay soomaali haddaan nahay weliba markaan afrika joognay waxaa dhahdaa al-usluub التسلطي الدكتاتوري بقى وأسلوب حوق iyo qahri iyo quwad iyo ku dhisan itaal oo ilmaha loo isticmaalo si loo qalbi jabiyo ya usluubkaasi waa usluub adag weeye waa usluubku ilaahay quraanka kaga warramay nabigeena calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu ku dhahay fabima rahmatin min allahi linta lahum nabiga ilaahayow calayhi salaatu wasalaam waxaad ku hanantay bini aadanka waxa weeye waa naxariis ilaahay ku siiyey low kunta haddaad ahaan lahayd faddan mid dhagaxa oo adag غليظ القلب قلبي سر أدق يعي لانفضوا من حولك ويكاكل يا إلهين قفنا كل مفرديان محادتك كإريدتك قف بقفك وكأدق يدك وكعب صدر نمبنيك وكدب عسيه هاي قبلك dadku ku soo ururaan marka aabanimadu kama dhigno xoog maaha hooyanimaduna kama dhigno xoog maaha marka kaasi waa usluub dadka isticmaala maxay dhalaan caruur laba ka soo baxda la socdo si fiicaya caruur mutiiciina wax adeecda ka dambaysa aabaha iyo hooyada number 1 number 2 maxaa ka soo baxa caruur markay qaan gaadhaan guryaha ka taga intii hore waa lagula joogi waa lagu adeecaya waxa leedahay ciyaalku fiicana anigu waan isku dubariday aqalkayga waa sidaas marka ay 18 jir gaadhaana ay salaamu kulee ku yaraana maxay dhaxayaan awrka hore socodkiisa yuu leeyahay awrka dambe way daba galayaan kii hore daba galayaan marka usluubka koowaad waa ka weey usluubka labaad waxa la al-usluub al-hazim kelmadda waa afcaal Soomaali ku sheegaya waa usluub go'aan leh waa qof markuu tarbiyada bixinayo go'aan leh ma aha dictator go'aan buu leeyahay go'aanku waa maxay iskuulka waxa la kacayaa salaada fajri guriga waa la kacayaa waa la tukanayaa waa la weysaysanaa waa la tukanaa kadibna quraanka la akhrinayaa buugaanta la adeegsanayaa waa la baxayaa hadalka uu go'an yahay waa usluub xaazim waa system marka guriga la soo galo waxa laga bilaabayaa waalidka madaxa laga dhukanayaa kadibna waa la fadhiisanayaa quraankii iyo iskuulka la dhiganayaa waxa la urda la isku deeranayaa televisionka amba internetka waxa la daawanayaa hal saaco inta baad leedihiin waa xaazim wax ma aha war ciyaalka daaha ka daawadaane war ubadka ka daa hadalka badan war raaxa ma jira guriga kali waa waxa weeyaan hadduu aabbu dhahdo war gabadhi ka dhahdo waa maxay dharkana isteetid
hooyo ay tiraahdo war qeyrkeed baa sitee dekada dadkoo dhan baa sitee waa wax cusube amba ay gabadhu tiraahdo hooyo ilaahay ka baq na inanta ka daa hadalka badan ka cabsiine dadka qeyrkeeda ha u ekaatee waxaasi tarbiyad ma aha waa fawda waxa maxaa la magaceega fawda bada lambar 2 marka waxa loo baahay usluubka raado alxaazim qof qaraarka uu qaataata ka soo noqonin waa usluub wanaagsan usluubkaas laakiin muxuu soo saaraa isaguna labuu soo saaraa wuxuu soo saaraa dad nidaam leh ubad nidaam leh koow laba muxuu soo saaraa ubad baritoole ku mahadnaqi doona marka ay shaqo tagaan nolosha ay galaan hooyada yaa bahay iyagu shaqeynayaan wax qoran dadka noocaas maxaa looga baahan yahay gadaal ay naga sheegi doonaan usluubka saddexaad waxaa la yiraahdaa usluubul mutasaahil qofka wax walba fudaysada okay waa fudayd gabadha soo gashay saacad dambe 10 barkii ay ku baqreed saaxiibadii baa la joogay ayaantii kale soo maqray ka baqreed 10 ma xafiday ayaantii kale soo gashay ku baqreed waa yaaray mutasaahil aqal waxba jirin system male nidaam male wax walba fudayd waa nolosha la fudaydiyay هذا الأسلوب محو سو سارا متسلكو اسنا لبا قلو وحو سو سارا دد aan horumar sameeyeen diin iyo adduunyada lambar laba muxuu sameeyaa dad nolosha markay galaan u haysta inay fududahay hadhowna fashilma waa mutasaahil waa tarbiyadii mutasaahilkaay tasaddex afraad ugu dambaysa waxa dhadaa usluubul ihmaal usluubul ihmaal amba usluubul istiqaala dadka shaqada iska casilay tarbiyadii baa iska casilay yaa iska casilay waxaan u haysanaa tarbiyadu inay tahay yaa raggu inay gaari koraan gaaridan dhaadheer maartay xooga badan leh inta la koro lacag la daba ordo la shaqeeyo hooyaduna ay baxdo dhiikar iyo balaayo ay gasho ay ka soo shaqeyso isaguna uu ka soo shaqeeyo ciyaalkana loo daayo iskuulka iyo dariiqa marka xaafadda la yimaadana okay maxaa u baahantiin dar lacag baan buuxinaa gaari ku soo bara u soo iibi maxaa u baahantiin kombiyuutarro u soo iibi maxaa u baahantiin waxaan u baahanay waxa u soo iibi maxaa u baahantiin cunto oo dharga ciyaalkii tarbiyadii waxaan u fahnay calool iyo dhar iyo jid ciyaalkiina waxay dhahdaan anagu cirka ma ku noolahay ambase ciyaalkii baan qaadno waxaan geynaa Afrika Turkiga Masar islaantii baan dirnay kaligeed halkaaba macallin fiican joogay quraanka xafisiya xaajiyadii miskiinada ahayd iyadii ciyaalka ka soo baxay ninkii u weynaado waa 12 jir waa 14 jir hooyo waxaan daa abiyaawe waxa la yiraahdaa carabtu waxay tiraahdaa agoonku ma aha ninka aabiyo hooyo waaye agoonku waxa weeye ninka ilaahay nolosha keenay ee la kulmay laba waalid oo faraha ka qaaday هذا هو اليتيم لما والد او فراها كقاضي marka usluubka ihmaal bada ihmaal isagoo wuxuu soo saaraa dad laba sifo soo saaraa koow qof wuxuu soo saaraa adduunkan waxba ku soo kordhineen la aakhira wala dunya iska nool wuxuu soo saaraa dadka mukhadaraadka cuna ee xabsiyada loo diyaariyay waxa soo saara usluubkaas marka maxaa niga dhahay ikhwaani fillah taasina waa maartay afartaan nooc okay su'aashani ugu dambaysay si aan waxa uga baxna maxaan u baahannahay tarbiyadu waxay u baahan tahay afar arimood u baahan tahay ama shan arimood inaan yeelano si aan ilmaha u barbaarin ikhwaani fillah iyo akhawati fillah number 1 si fiican isku dhageysano number 1 maxaa loo baahan yahay number 1 si aan ilmaha u barbaarino alqudwatu inaan ilmaha u noqono mid kugu dayan kara waa inaad noqotid qof lagu dayan karo waxaad sheegaysid adiguna practical ku samee tadbiiq han noqon qof hadla lima taquluna ma la taf'alun loo baahno atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum loo baahno ilmaha hadda ka tiraahdo aabo ha miskiidka lagu tukadaa masaajidka ku tukado hadda ilmaha ku tiraahdo quraanka la akhriya adigu quraanka akhri hadda ilmaha ka tiraahdo waalidka waa loo naxariistaa
حكو أركادو مركز والدك هذا الحياة أدو أفريقيا جوا تليفونك أبو دوك شكل الدال تليفونك هو يا معان حكو مغلو هذا بريسيد إنه وحبرته أديكو وحبره هذا ربتينه نقفنا حريص له أديكو نحريص يلو هذا نقطة تقف ضدك بنيادك وحلو وقبته أدو بنيادك وقبه وإنه أركع عمل وناكسن أديكو أو صعدة القدوة قدوة لو باهي أدوك waxa lagu kala tagay waa qudwa gaalada cad oo gaalada waxa ay u haystaan sax ubadkooga way baraan way ku dhaqmaan waxa ikhsac u haystaan hatta xumaan ba sameeyaan waxa bay ka dhaadhiciyeen maahay waxa bayna ugu yihiin hadaf ugu yihiin ku dayasho fiican marka waa inaan noqotitaa haday qudwa jirin tarbiya ma jirto inaan daalin ilmaha hadal maaha waxa waa amal arinta labaad waxa weeye المصاحبة والمعايشة المها صاحب لنقو لنولو المها صاحب لنقو لنولو المها دو كوي ما دادو سريتا جيفا وكدو الكرو وكدو العيارو وكدو البودبودو سوا تدعجينا هذا نياهي سوالي دياشو بكرنان سلاتي نياهي هبلاي قال المها نقا قادته ilmaha ma yadaale kaale ilmaha naga qaadade okay na isoo ordo war aabaha ka seexde kaale ay ka tiraado ilmaha yar wuxuu oranayaa war odaygani boqorka waa maxay waa boqorkani ka laga cilmi waa boqore nabigeena Muhammad alayhi salatu salaam isagoo salaadii tukanaya ayay labadii u dhalay ay dhashay Faaduma soo galeen dhabarkiisu koray salaadii buu tukanaya sujuudi buu ku jiraa nabigu sujuudi buu dheereeyay sallallahu alayhi wasallam uu dheereeyay saxaabadii way yaabeen waa nabiga maxaa ku dhacay alayhi salaam malaha uu geeriyooday dhahdeen nafti baa ka baxday malaha hatta uu mid madaxa sare u qaado yara eegay ishu yara eegay salaadii madaxa ka qaaday wuxuu arkay nabigu iska noolo inankiisi korsan yahay dhabarka ka dul koray nabigu markuu salaadii ka baxay wuxuu yiri alayhi salaam waad yaabteen malaha ها ويا من يدهدين وحولي وحا ilmaha iga yar iyo dhabarkayga soo dul koray waxaan rabay buuri inuu xaajadiisa qaato eeg cilmiga tarbiyada xaajadiisa waa maxay baahidiisa inuu dhamaysto baahidiisa waa maxay inuu raaxaysto igu dul ciyaaro ma rabin buuri inaan ka joojiyo aduma salaad ba ku jirta hadana waxa leedahay wariga durugay hay ku ma isoo dhawaanay hay ku dul ciyaarinay waliba annagu markaan daad yaro weynaatana إلا الصومالي بانو هادنا والي واسيد الله والله واسيد الله سبحانه سلامتي لبادي waxaa dhashay mugti markaas uu kulay waa soo daalay gada ciyaarta badda dhaqaaq karaya ilmuhu wuxuu baahan yahay musaaxabadiisu laba arimood dhageysta ikhwaani fillah lambar 1 maxaa ka ah in la is yareeyo at-tataffulu ilmaha isku yaree daadiisa isgaarsi arinta labaad waa maxay لو وداق waxa madaxiisa ku jira marka musaaxaba iyo muaayasha ila la saaxiibtid la noolaatidna maxaa is weydiinaysaa maxaad akhridaa maxaa laga soo yiri la cashatag la qadatag la bax la dhoof meelaha la soo marmar dhageyso wuxuu leeyahay mashaakil bay leeyihiin habluhu raguna mashaakil bay leeyihiin dhageyso waxaa la qofka tarbiyada fiican leh dhagtiisu way weyn tahay afkiisuna uu yar yahay biaksi anaka tarbiyadeena afkeena weyn dhagteena yar waxba ma dhageysanaa waa hada Allah ilmaha yar wuxuu dhayaa ka amusiya laakiin waa ina noqoto dhag weyn qul huwa udhun rasuulka udhun bi orjeed waa dhag waxba maqlaa dhageyso ilmaha yar waa in la is dhageysto weeyaan haddaad dhageysatid isaguna uu ku dhageysanaya walidaalika waxay qoraan culimada tarbiyadu qaacido xeer bay noo sameeyay waxay dhahdaan ihtarim الذات يحترمك ilmaha yar ixtiraam isna uu ku ixtiraamaya ilmaha yar qadari isaguna ku qadarinaya ilmaha marka la nooshahay waa inaad ka tiraadid waay aqligaagu waa ziyaado iimaankaagu waa ajiib raganimo aad leedahay gabar fiican baa tahay waxa weeyna ilmaha waxa weyn lagu akhriyo arinta saddexaad ee loo baahan yahay waxa weeye muhiim waxa ah
inaa ilmaha munaasabaad loo sameeyo munaasabaad munaasabo lagu tashjiiciyo munaasabo lagu saxo munaasabo lagu ammaano munaasabo lagu canaanto inay isku mid noqonin munaasabaad waa inay jiraan ubadka munaasabaadka loo sameeyo way xafidaan annagu berigaan yaray waxa oran jirnay wuxuu aabba iyo hooyo noo sheegan waa xafisanahay maxaa u xafisanahay mar kastina lama hadlayn hooyo aabbo marar bayna la hadlayeen markaa macnay lahayd waan xafideen waxa uu iga yidhi beriga waxaasuu iga yidhi aniga markaana waxaan xasuustaa aniga oo 6 jir ah amba 5 jir ma garanayo iyaan xidhay macawis aabbahay leeyahay waxaan tagay masaajidka salaadii jumcada ugu horreysay ahayd salaadii jumcada soo tukaday waan soo laamay markaan soo laamay aabbana ima kaxayn hooyana ima kaxayn hooyaday oo meelo ka shaqayn jirta oo soo rawaxday bay aragtay anigoo soo galayo gurigii oo macawistii aabba sita oo salaadii jumcada soo tukaday ilaa imkaan xasuustaa waxay tiri hooyo ma soo tukatay waxaan ku idhi haa maanta waxaad leedahay lacag haysiisa kow qadadana qadam macaan baan ku siinay labo saddexna waxay tiri dhabteeda kaalay ku seexa maanta halka iska seexo waa xafiday ayaantii aan salaada jumcada tukaday wixii ay soo galay wax awal ma helayn ayaantaan bukooda iyo ayaantaan shumma iyo ayaantaan mumataga iyo yaa lay jeclaan jiray laakiin ayaanta salaadii jumca inaan soo tukaday calaamad bay ii noqotay nolosheedu ilaa imika ku jirta munaasabaad baa ilmaha loo sameeyaa gaaladu way sameeyaan tarbiyadda islaamkuna uu samayn jiray arrinta afaraad waxa weeye ee tarbiyadda loo baahaya waxa weeye ilmaha ha ku waaninin af ee ku waani camal qiyam samayso waaweyn matalan imaamu maalik raximahullah wuxuu suuqu tagay wuxuu soo iibsaday gitaar buu soo iibsaday uu tumanayay markaa madiinuu joogaa caasimaddii islaamka magaaladii rasuulka sal lla slam musiig buu ku tumanayaa isagoo tumanaya gitaarkii iyo hooyadii u soo gashay hooyadii ma oran dheg gitaarka bilaa edeb ma aha hol islaamka waqtiga uu nool yahay waa iska socotay suuqay tagtay waxa u soo iibsay cimaamad waxa u soo iibsay dhar waxa u soo iibsay cadarro way soo noqotay gitaarkii bay ka qaaday way jajabisay waxa u xidhay cimaamaddii waxay u gelisay dharkii khamiiskii dharkii fiicnaa waxay u marisay cadarkii way qaaday waxay u geysay caalimkii weynaa ee madiina waqtigaa joogay rabiic waxay ku tiri dhegayso ninkaa ma aragtay anaa bixinaya masruufkiisa adigana anaa ku siinaya waxa wax ku baraysid waxaan rabaa inuu noqdo caalim min culamaa'i lumma imaam maalik waa afarta sheekha islaamka ugu waaweyn laa yuftaa maalikun wa huwa fi lmadiina laa yuftaa fi lmadiina madiina lama fadwoon kara imaam maalig oo jooga waa ninka halkaa gaadhay weeyaan madhabka maalikiyadana ka ah imaamka weeye hooyadii baa ku bedishay akhlaaq iyo qiyam ficil bay samaysay may cadhoon may dagaalamin laakiin badiilkiiba u keentay marka tarbiyadu waxaa maanta inaad badiil qofka u keentid ilmahaaga waxaa u didaysid waxa ka fiican u keen tusna waxa ka fiican yahay imaam maalik maanta ma dhaceen hadduuna hooyadii ayna wanaagsanayn arrinta shanaad ugu dambaysa oo kaga baxay waxa weeyaan ilmaha waa in discussion la sameeyo almunaaqasha munaaqasha abadiya guriga waa inay ka socoto dood ilmahaaga la dood waxaana samaynaysid muu fiican yahay mise wuxuu yahay caqligiisa qanci ilmaha ka celi wuxuu samaynayo oo quraata bas qanci almunaaqasha dhagaysta ikhwaani almunaaqasha munaaqashadu waa maxay dhagayso ha ku dhagaysto qanci ha ku qanciyo aqoon u sheeg aqoonta ka dhagayso dhagayso isna ha ku dhagaysto la dood annagu ma naqaano munaaqashadu ma aha in la isla qalqaliyo war kaale fadhiiso ma aha miiska la wada fadhiisanayaan waxaad ka leedahay dhagayso maanta shantii salaadood midna maad bixin masaajid ma aadin waay waa kuu sheegaya waa caajisnaa nabiga nin baa u yimid ilmeer baa u yimid sal slam yaa rasuul allah idan lii fi zina inaan zinaystaan rabaa ii fasax hadda kamuu oran waxaan rabaa inaan
waxaan yar samay waa zinadii waa min akbar al-kabaa'ir isaamax inaan zinaysto idan li fi zina nabigu muxuu ku yidhi wuxuu yidhi iga warkac wuxuu yidhi bini aadam baa tahay ximaar baa tahay dameer baa tahay daadaan baa tahay gaal baa tahay munaafiq baa tahay caasi baa tahay waxaa midna kama oran soo dhow ku yidhi soo dhow maxaa tiri zinada isaamax nabigu markaa uu la sheekaystay discussion buu la galay dhageyso ku yidhi halkuu uga bilaabay anugu waxaan ka yaabay meeshu ka bilaabay rasuulku wuxuu maxaad rabtaa inaad sinaysid haa okay hooyadaa ma ogoshay in laga sinaysto walaashaa kama oran iyo saaxiibaan hooyadaa ummak in caawa laga sinaysto arkaysid ma ogoshahay maya buu yidhi wakadalika annaas dadkuna waa sidaa buu yidhi ma ogolo walaasha maya ma ogolo nin carabadeedoo raganimo labu ahaa moogta uu soo waday kadibna uu duceeyey anigu waxaan idhahdaa markaan joogo maraykan iyo Canada iyo Yurub markaan joogo ilmo yaroo meesha ku koro ku kobcayo ku dhashay oo 20 jira hadduu sheekh u yimaado miskiidka oo ka dhad adeer inay sinaystaan doonaya haddaa ka tiraadid sidii rasuulka sallallahu alayhi wasallam hooyada ma u ogoshahay waa haddii raalli ka tahay dib koro waa xore uu kule waa xore hadda iyadu rabto okay walaasha maxaa ugu wacan ma garanaysiin waxaan dhex joognaa bulsho weyn oo tiri zinadu waa xorriyad shakhsi ah zinadu waa maxay waa xorriyad shakhsi ah qofku wuxuu doonu samayn karaa qofku doonu la seexan karaa jirkiisa isaga iska leh dad lama leh annaguna dhaqankeenu waa maxay waa cirdi ninku hadduu arko hooyadii uu nin kale ku meermeeraysanayo qoortu ka goynaya amba aabii aan ahayn amba qof qaba aan ahayn adeerkiya walaashii hadduu arko nin warda ka meeraysa meesha dhalinyarada markaan afrika joognay hadduu nin meesha yimaado gabadha walaashii la haasaba doonayo oo dariiqii sax soo mari waayo waxaan ku oran jiray wariyaha guriga haddaa habeen damba kugu arko waxaa kugu dhaca dhagaha faraha gelin meelahan laga arkin ka meeraysa meelahan waay dee waxay ku jira yaroo Soomaali aan ahay oo islaam aan ahay ma ogolin laakiin halka waxaa lagu leeyahay gabadhii aqalka imanaysa nin bay wadataa kaale aabba saaxiibkay baro ay saaxiibka aabba ha saaxiibkay wayaan haye maxaa kaloo samaynaysaa habeen buu ila seexanaya aqalka waa ku seexani oday Masri oo sheekha rahimahullah uu dhintay wuxuu joogi jiray wadda Yurubiyana Talyaanigu joogi jiray gabadhii yareedu dhalay ayaa u imatay aabbo ninkan waa saaxiibkay maxaa tali buu ninkan waa saaxiibkay waa sheekh imaama haye dee habeen buu ka seexanaya oo muxuu ka seexanaya dee dhirbaa uu ku dhufay baga telefoon bay qaato waa loo yimid odayga kala saaray ka baxay leeyahay sheekh odaygii markii daba gabadhii waa muslim way saamaxday kala aabo dawladda u sheegeen odaygii wuxuu yiri 2 sano aan fikradii baabi'inay marka aan ka qanciyay inay haddeeta aan wixii iloobay ninkiina iskala nooshahay on baa yidhi dhageysta qaahira tageenaa qaahira maxaan ka doonaa soo siyaarina qaahira buurihii ahraamaadka waxba soo daawanaa diyaaradda soo koreen buu marka diyaaraddii koreen ilaa ninkan uu cadhaysan yahay sheekhan nafta ka baxsan ee diyaaraddii tiri qaahiraan fadhiisan tiri ee la dhaadhacayo oo gabadheeda halkaa ka dhifta feed yig salaankii bay dhulka u dhacday masaaridii waad maxaa u dilaysaa uu sheegoon shicib Masri iska waalaba gabadhii way dileen feed la wuxuu geeyay baadiyahooyi wuxuu halkaa fadhiya qiyaama halkaa joogo sidaas keligiisa soo noqday markaas yani waxa weeyaan tarbiyad saxana ma intaasi ma garan laakiin waxaan uga jeedaa waxa weeye waxa jira tarbiyadu waqtiga waxay ahayd in la qofka aabaha ma hooyada ma la jeceshahay maanta dadku taasi waa ta koobaad weeye mid labaad baa jirta xayawaanka la cuno maartay lo'da iyo geela iyo adhiga iyo doofaarka waxa la cuno xalaal iyo xaraam weeye xayawaanaadka waxaa jira qaar la yiraahdo qiiro male qiiradu waxa weeyaan hinaasab male ma cadhoodaan maseer male iyaa ka mida doofaarka ka mida doofaarku madax doofaarku
dakar iyo unsaha dhidi laboodka haddaad mid kale uu yimaado la shaqeeyo uu eego ma cadhoonayo laakiin libaaxa iyo xayawaanada qaarkood haddii lagu soo meeraysto gooshi iyo wax aygaasa wala kala yaaci meesha waa nin nool okay xayawaanku laba u kala baxaan kuwa isqabo oo laba u nool iyo kuwa sida xayawaanka geel iyo lo'di oo maaragtay ka socaa innahum kala ancaam waxaa haddaad in badan doofaarka cuntid mujtamaca maxaa ku dhalaya hinaaso maseer ma yeeshaan beri baa laga sheekeeyay nin Europeana gurigiisu fadhiya gabadhii oo farxaanadu u soo galay xaaskiisii oo maanta farxaanada ilaa gabadha nin baa la jooga aqalka oo farxaan ka dhigay isna uu soo galay waxay tiri caawa casho fiican baan diyaariyay ma ku keenaa wuxuu dhahaa ay keen buule ka qolka kale ku dhuumanayna waxay ugeey wiilka qolka kale fadhiya waxay ugeey wax cadho ma jirtay ma cadhoon karo laana iyada dooratay waa sinaantiisa waa xaaskiisa dara nolosha noocaas aan dhex imanay waxay u baahan tahay marka inaan fahanno sida aan ula dhaqmi lahayn oo u tarbiyadeyn lahayn marka ikhwaani fillah akhawati fillah tarbiyadu waa taas waxaan kaga baxayaa shanta jaranjaray ciyaalku maraan saddex jaranjaro ay sheegayaan jaranjarada koowaad waxaa la dhahdaa jaranjarada ilmaha yar rumaysan yahay anta aduu ku jecel yahay bas qofka la marko aabiyo hooyo arka jaranjarada waxaa la dhahdaa ana isaga is arka aniga waa bata jaranjarada saddexaad waxaa la dhahdaa naxnu maxaa markaa la rabaa annaka markuu ilmuhu anta ku leeyahay waad jeceshahay laakiin markuu ana bilaabo war ilmuhu yaro warraad leedahay ana doon buu hayaay marka marxaladda ugu adagna waa marxaladu ana waa markay 13 jir 12 jir 11 jir 15 jir 16 jir waa intaas weey waxaana ilmaha ku dhaca wax dhado hormoonaadka jirkiisa ayaa ilmaha xoog isku bedelaya gabdhahana wax badan naasiya ka soo baxaya waxba ka imanay xaydka ka imanaya ilmaha yari sharab yar buu soo bixinaya codkiisa weynaanaya nin buu isku arkaya ya urba ka soo bax jirkiisa uraya haduu la shameeyo waayo waxay noqdaan caajis ma socon karo ilmaha ruux isku haystaan wax kale hadaa la hadashid aniga saabu ka leeyahay islaantii yaabay saabo kani waa maxay aniga ku celinay marxaladda ugu adag waa ka waa in marxaladda ilmaha loo dhawaado oo la fahansiiyo inay tahay marxalad fizyolojiya ma aha marxalad xun jirkiisa isbedilaya culays bay raggu noqdaan gabdhuhuna aqalka isku xidhaan gabdhuhu inta badan guriga isku xidhaan way isdoodoonaan waxbay akhristaan way nacaan sheekada badan inamaduna waxay noqdaan caajis iskoolka inuu ka tagu doonaa waa marxalad adag waa marxaladda u baahan yahay ilmuhu in loo dhawaado lala saaxiibo la barto cilmu nafsi numuw cilmiga psychological kobcinta kursiinta la dhado in la barto way marxaladu naxnu waxa la gaadhaa ko ilaa tajriib ka weyn marxaladda hadaa ilmaha dhaafisid oo 20 caafimaad ku gaadho ko ilaa tajriib hawa cabsoon oo ka baxay hadeed ilmuhu marxaladda uu lumana waa marxaladda dhexda ana u taagan yahay mukhadaraadka bilaabi karo suuqa gali karo ka hor iman karo ku dhibi karo oo marxaladda tarbiyada u baahan adagna waa marxaladda weyn marxaladdu anta maaha marxaladdu naxnu maaha annaka maaha waa marxaladda aniga marka insha Allah ta'ala intaasaan ka bixi kala su'aalaha uga tagi doona jazakumullahu khairan wa sallallahu ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in codkayguna ma fiicneen raali noqdo insha Allah ta'ala jazakumullahu khairan